dhawaada cashirkeena maanta insha Allah cashirkeena maanta waa cashir erayo cusub ama new words luqadda Ingiriiska erayo cusub luqadda Ingiriiska kuwaas oo isku dayna inaynu bal helno ereyga af Soomaali ahaan u dhigma ama la midka ah ee loo isticmaali karo simple English new words contrary waxa weeye wax liddi ku ah ka soo horjeeda aan ku habboonayn liddi ku ah waa garanay liddi waa wax ka soo horjeeda ama aan ku habboonayn amongi ka mid ah ama among the team kooxdan ayaan ka mid ahaansho content nuxur waxaa laga wadaa ama nuxur waa muhiimadda tusaale waxbaa laga hadlayaa ama war qof sheegaya muhiimadda ku jirta waaye muhiimadda nuxur wariyaasha aad u isticmaala ereygaas nuxur muhiimadda uu leeyahay ereygaas ama waxa muhiimka ah looga jeedo waaye component waxa weeye qaybo ama qayb ahaan dhowr qaybood waaye laakiin qayb u qaybsan magac guud laakiin hal xabay wataan waa garanay components waa waxyaalo guud oo qaybo kala duwan ah scenario waa dhacdo waxaan dhihi karaa ku soo martay oo kale ama faa'iido ha ahaato ama wax xun ha ahaato ama wax fiican ha ahaato occasion waxa weeye ayaduna munaasabad sida ciidaha oo kale qalin jabinta oo kale occasion waad dhihi kartaa exploitation ka faa'iidaysi sharci darro ah tusaalahaan oo kale ganacsatada qaar waxaa arkaysaa dad baan shay bay soo gadayaan waxay ku soo gadayaan qiimo ahaan tusaalahaan oo kale $100 inay ku soo gadaan ka yaab shaygii ama $50 oo kale ama 50 shilin oo kale kadib waxay ku sii iibinayaan 3 jibaarkiis baahida dadkay ka faa'iideysanayaan marka waa ka faa'iideysi sharci darro exploitation qof aad shaqo uga faa'iideysatay qof aad xil iyo madaxtinimo uga faa'iideysatay qof aad dhaqaalahan uga faa'iideysatay exploitation waa aragnaa iyadana maxaa la dhahaa exploitation dhiig miirato ama dhiig miirad waa garanay exploration sahaminta ama sahan waxaa la yidhaahdaa marka aad tusaalahaan oo kale guriga kira u degan tahay waa tusaalaha ugu dhow magaalada aan u qaadan karno kiraad guri u degan tahay guriga kugu xumaaday waxaad isku daysaa inaad guri fiican raadiso sahan waaye macnaha meeshaad joogtay wax ka fiican inaad raadiso waa garanay expense kharashaad tusaale $100 haysataa ama 100 shilin ama $1 ama bir baa haysataa waxaad isku daysaa inaad isticmaasho kan biyo u isticmaasho maxay caano u isticmaasho raashin expense kharashaadka aad bixinayso gap waxaan dhahaynaa farqiga gap waa farqi u dhaxeeya tusaalahaan oo kale lacag yar haysataa baahidaaduna waa badan tahay baahidaada iyo waxaad haysato farqi badan baa u dhaxeeya tusaale kaasaan u qaadanaynaa isagana gap different kala duwan wax kala duwan consumption isticmaalka tusaalahaan oo kale consumption waxaa looga jeedaa food consumption cuntada saad u isticmaashay oo kale raashin baad keentaa bil walba waa la isticmaalay family consumption aad dhihi kartaa marka family consumption isticmaal disposable la tuuri karo tusaale shay kolkaad soo qaato kabaad soo gadatay muddo ay isticmaashay waa kaa halaabeen waa dhammaadeen waa iska tuuraysaa waa wax la tuuri karo associated ereygan wuxuu dhawaaqaya sha associated ku xiran la xiriira waa kuka ama la xidhiidha ama ku xiran saad u qaadataba potential kartida tabarta awoodda do you have a potential to conduct for this work ma leedahay awood ama karti aad ku qabato shaqadan ama mashruucan potential waxaan dhahaynaa karti actual dhab ah xaqiiqa through iyadoo loo marayo through wax dhex marayo toos loogu marayo doontu waa tusaale doontu halkanay webiga ka taagan tahay way dhex maraysaa waxaad dhihi kartaa the boat is passing through the water iyadoo loo marayo saa doonta adigu isticmaal luqadaada
waa garanay. Restore soo celin. I want to restore my dignity. I want to restore the dignity of my country. I want to restore the dignity of my team. Dhalinyaradii maalinka dhawaada South Sudan la ciyaaraysay ciyaarta oo footballka waxay soo celiyeen sharaftii Soomaaliya kolkii loo fiiriyo heerka caalamka. waa restore soo celin. Balanced maxaad balance garaynaysaa? Balanced waxa weeye ereygan u dambeeya balanced waxa weeye dheelitiran. Salaan oo kale hadaan ku idhaaho waxaa lagu siiyey lacag 500 waa tusaalaha ugu yar. waxaa lagu dhahay lacagta isticmaal saad isticmaashayna ii soo sheeg ayaan ku dhahay marka dambe. marka waxaa tidhi waxaanu isticmaalay intan biyo, intan raashin, intan kiro, intan maxay eber baa soo hadhay dhammaanteed. ama tusaalahaan oo kale haddii tusaalahaan oo kale shay wax culusaad qaado hal dhinac ku qaado dhinacii aad isu godaysaa ama aad u dheelinaysaa. laakiin labadaada gacmood laba shay oo isku miisaan haddaad ku qaado dhinacna uma liicaysid. marka insha allah intaasaan maanta ku daynaynaa cashirkeenna. waa cashir yaroo gaaban. ereyada cusubna ama new wordskuna waxay kaa caawinayaan inaad fursad u hesho inaad adigu kan ereyada intaad isticmaasho aad jilmad dhammaystiran aad dhisto oo la fahmi karo. marka intaasaan ku daynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.